بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا أمد الصوماليد meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda warkaygu wuxuu ku saabsan yahay arrin aan wanaagsanayn oo shalay iyo maantaba ka dhacday degmada Wanweyn oo runtii dad la dilo guryo la gubo dad la gubo arrintaas oo dadka Soomaaliyeed aysan dhaqan u lahayn islaamnimada aad ugu xun dadnimada aad ugu xun dadka la dhibaataynayna dad wax galabsada aan ahayn dadka Soomaalida maanta baahi u qaba hoy ay galaan in maanta hoy la gubo ama qof nool la gubo waa dhaqan aad iyo aad u xun arrintaas aad iyo aad ugu xunnahay waa ka tacsiinayna waxaan ma taqaanaa dadka arrintaas abaabulaya ama ka shaqeeyay ugu baaqayna inay degdeg u joojiyaan dawladda iyo dawlad goboleedka waxay ahaato maxaan ku yiraahdaa koonfur galbeedna inay tilaabo arrintaas ugu joojinay ay qaataan sidaas oo kale odayaasha dhaqanka ama duubabka culimada waxgaradka dhalinyarada inaan la ogolaanin arrimo noocaas inay dalkeena ka dhacaan dambi iyo dhibaato waxaana soo gaaray ayaa naga badan baahi looma qabo maanta falalka noocaasa marka aad iyo aad ugu xunnahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qof kasta oo qayb ka qaadan kara inuu joojiyo inta dhibka gaaran allaha u boogadhayo wixii ma taqaanaa la waayay oo hantiyana ilaahay bedelkooda qaba khayr ka siiyo maanta qof in la dilana looma baahna guri la gubana looma baahna waxa loo baahan yahay waxa waaye in la helo nabad iyo isku kalsoonaansho iyo in wax la dhiso oo wax hore loo mariyo aad iyo aad mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.